hoos u dhici ugu weyn ayaa waxaa laga dareemayaa kala iibsiga xoolaha nool gaar ahaan lo'doo ahayd inta badan ganacsatada gobolkani waqooyiga bariya dalka Kenya halkay hantidooda ugu faraha badan ay ka soo saaran jireen suuqa maanta hadda aad buu u liitaa lo'dii 40 50 60 la gaday 20 iyo waxba la gadayaa ilaa 18 Abdow Abikar Yorow waa nin ganacsada ah in 20 sano ka badanna ka soo shaqeynay suuqa xoolaha Gaarisa VOA-da oo booqatay suuqaas iyo wuxuu uga waramay dareenkiisa ku aadan isbedelka ku yimid suuqaasi aniga nin baa mishtar ah suuqan ka shaqeyn jiray dhowr iyo 20 sano maanta maalin ku xun yahay maana soo marin xoolaha markay abaar ay dhacdo inay dadweynaha la saaciday oo dunyada hadaan laga waynin raashin loo keenaa ya haboonaan lahayd marka wax saacido oo xagga dawladda aan ka qabno ma laha ba iyo baaba fara badan ayaa ka muuqda xoolaha iminka indhihiina ay qabanayaan waana xaalad aad u cakiran abaarihii baana ay ku soo dhuftay 3 sano la soo dhaafayna waxay saameyn ku yeesheen dadka reer guuraaga in xoolahoodu xataa ay wala soo safraan inay beec geystaan dadka reer guuraaga la sheekaystay waxay iga sheekeeyeen in xoolo fara badan ay kaga soo tageen guryahooda aysan awoodi waayeen in ay halkan keenaan beec la'aanta ka jirto hadda looda way ii taagan tahay jidka aan ku celinay maahay hatta sahay aan ku noqdaan waan la afar cawaan dhax ku soo jiro oo balanbala iyo meeshan waxay goosataan mala beer aan dhax u soo gaday hatta did lacagteeda waa liigu leey dukaamiya deynta ka soo qaad raashinka waa liigu leey meel aan ku celin waan haddana iska sii celiyaan rabaa siyaalo kala duwan ayaa qoysas fara badan noloshoodu waxay uga soo saaran jireen suuqa xoolaha Gaarisa ayagoo dilaaliinta iyo malaaliinta iyo kuwa gawaarida rarana ay ahaayeen kuwa macaash fara badan ka sameynayay Xasan Sheekh Cabdina waxa uu kamid ahaa raggaasi macaashka ku haysta suuqa waxaan ahay dadka u kala gado xoolaha kuwa keenan iyo kuwa gadanayaan xilliga la joogo xoolaha ganacsigooda ma socdo sababaha ah abaarta waqtigeeda lagu jiraa xoolihii kuwii soo gadanayeen meesha ka soo gadanayeen abaar waay kuwii sii gadanayeen inay bujirgayaan rabaan xoolo nool ay gataan ma laha sida awgeed xoolihii ganacsigooda wuu jifaa diifiya dacalo fara badan ayaa ka muuqato xoolahan oo ah inta badan kuwa ka soo badbaaday abaarihii baana ay ku dhufatay geeska Afrika looda inta badan geeska Afrika timaadaya waxay ka imaataa gobolka Soomaalida dalka Ethiopia Soomaaliya iyo gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya waxaana loo dhoofiyaa qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya oo halka suuqa ugu weyn ee bariga iyo bartamaha Afrika uu ku yaalo oo ah magaalada tani Gaarisa Maxamed Farax Shire VOA suuqa xoolaha Gaarisa